dhibaato weyn baa ku dhacday meel kasta ha joogaan forever everywhere meel kasta adduunka ha joogaan macnaha forever waqooyi koonfur forever meel walba dhibaata ku dhacday dagaal sokeeyay faa'iidada iyo khasaaraha uu leeyahay waynu kala naqaanaa dawlad la'aantu khasaaraha iyo faa'iidada ay leedahay waynu kala naqaanaa maxaa laga dhaxlaa dawlad la'aanta dawladda waxa laga dhaxlaa horta aan sheekada idiin soo kala dhaafinay dawladda waxa laga dhaxlaa nabad baa laga dhaxlaa waxbarasho laga dhaxlaa caafimaad baa laga dhaxlaa hanti baa laga dhaxlaa cimri dheer baa laga dhaxlaa qurux baa laga dhaxlaa waxa laga dhaxlaa ma garanaysa qadarin adduunku ku qadariyo baasaboorkaaga la qiimeeyo calankaaga la qiimeeyo dadnimadaada la qiimeeyo jiritaankaaga la qiimeeyo macnaha adduunka qof qiimo leh ayaad ka tahay waa haddaad dawlad leedahay haddaanad dawlad lahayn adduunyada maxaad ka tahay refugeena waxa weeye micnihiisu qof miskiina oo soo cararay oo magangelyo doona oo aan haysan dhul oo aan haysan madaxweyne oo aan haysan wada magangelyo doonahoo iska day refugeeya waaba qaxoonti baynu inagu naqaanaa okay markaa horta waynu aragnay micnaha cid idinka sheekaynaysaa ma jirto hadda adduun weynahanaynu joogno ama adduun weynahaba dawladaha dadka dawladaha leh ee dawladahooda dhisan yihiin ayaga ka shaqeeya dad waxa jira ka shaqeeya oo u soo shaqo taga dadkaas maxay ku shaqeeyaan baasaboorradooda ay wadanka ku yimaadaan baasaboorkiisu dhiibanayaa sharcigiisu dhiibanayaa shaqo weydiisanayaa halkaasaa lagu siinayaa shaqo uu shaqaysanaya markuu shaqaystana go back wadankiisuba aadayaa reerkiisu la soo joogo iska soo noqonayaa dhowtana micnaha adoos isagoo wadankiisa dhisan yahay oo uu nolol leeyahay oo wanaagsan u shaqaysanaya baasaboorkiisa ku shaqaysan goos dawlad buu leeyahay waa la qiimeynaya adduunka waa la yaqaanaa soomaad garan markaa taa inagu ma lihin maxaa kaloo inagu dhacay safaaradaheeni adduunka khadkay ka baxeen mabaynaan haysan 30 sano safaarad shaqaynaysa waaba iska yareedba dee waa uu iska magac u yaal bay ahayd special wadanka Mareykanka macnaha Mareykanka adduunka waa ka dambeeya waynu ognahay waa ogti waxaa kaloo dhibaatooyinka burburka weyn inagu dhacay baan idiin sheegayaa ee kale macnaha qaranjab baa inagu dhacay qaranjab dhalinyaradeenii waxaanu ka dhaxlay dawlad la'aanta oo inagu dhacaan idiin sheegay horta dadkeena oo tafaraaraq ku dhacay adduunka tafaraaraq dadkeenii oo adduunka meel walba tegay oo ku nool kow furfur iyo dawlad la'aan dadkeena ku dhacday oo gobol gobol magaalo magaalo tuulo tuulo isu kala xukumay ta kale dabka iga sii dhacay markuu waalan jiray ha gobol gobol isu kala xukumay gobol gobol isu kala xukumay waxaanu kaloo ka dhaxalay badda dhalinyaradeennii adduunka waxaynoo qaban lahayd ama wuxu tari lahayd ama adduunka injineeradii ama adduunka dhakhtaradii noqon lahaa mustaqbalkii berri oo badda nus milyan ku dhammaaday tahriib oo saxaraa ku dhintay oo maxay haytay badda Yaman ku dhintay oo Liibiya ku dhintay oo adduunka dee ku rafaaday oo haddana dhalinyaradeenni meel kasta adduunka dadka lagu laayay oo South Africa lagu laayay oo intii South Africa u yaaceen oo u shaqo tageen ilaa wadan shaqale ma haystaan dhalinyaradeenni marka jaamacadaha ka soo baxaan ma haystaan waxay ka shaqeeyaan marka maxaa dhacaya dhalinyaradii shaqo la'aan baa ku dhacaysa qofkii jaamacad buu ka soo baxay PhD buu haystaa 2 cisho markuu 2 gidaar ka soo wareego ee uu waxba ka garan waayo dee waa ka iska taariiba dhaqaaqay because bulshadeennii inagoo marka horeba ahayn dad yar oo aan dad badan ahayn
ayaa haddana waxaynu nahay dad kala qoqoban oo kala nool oo degmo oo kala nool oo qolo dawlad gobol samaystay oo maaragtay haddana kala takooran ilaa dadkii way kala takooran yihiin macnaha dadkii waa dad Soomaaliyeed oo isku dhex jiraan oo waxaan oran karaa businesskii iyo wixii isku dhex jiraan haddana something happen waxaa imanaya in qolo kastaba maamul gaar u tahay maamulkii gaar ah markuu yahay anigu san aaminsanay marka aad adigu maamulka u dhalatay jaamacadda ka soo baxday I believe that inaad maamulkaas u shaqayn karto oo xoogaa maaragtay way yara adagtay inaad ka kale maamulka kale shaqo ka hesho because waxa lagu leeyahay maamulka reer hebel baa dawladda reer hebel baa maxaad halkaaga u joogoodo uga shaqayn weyday marka waxoogaa dhibaato yara dhacday inkasta oo la igu yiri dawladda Muqdisho macnaha dhalinyaradu marka ay ka baxdaan jaamacad Muqdisho waa meesha kaliya dhalinyarada Soomaaliyeed u siman macnaha u siman international ah oo inamadu markay jaamacadaha ka baxaan inuu jaamacad ka baxo oo Muqdisho tago waa helaya shaqo macnaha shaqo weelaya laakiin waxoogaa horta Muqdisho waa hooyadii Soomaaliyeed wala caadi ma marka ma sha Allah marka waxa weeyaan in dhibaato badan bay leedahay dawladda aantu haddaba waxaan uga socdaa dawladdu meesha ku socoto haddaba dawladda wanaageeda ayaan u soo gelinaa dawladda maanta jirta anigu intii aan ka arkay inkastoo aan wadankii ku noolayn laakiin afafaalaha wadanka dawladda ama wajiga ay muuqda dhibaato badan way dhacday intii ay dawladda Soomaaliya hadda jirtay dawladda Farmaajo intii hadda jirtay dib badan wuu dhacay dib badan wuu dhacay de wax badan oo wanaagsan way dhaceen dawladna mucaarad iyo maxaafid way inay yeelato waa very important because maxaafid kaliya hadaynu noqono waxba ma hagaagayaan waxa weeyaan qofka bini aadanka markuu madaxweyne yahay ama madaxweyne ku xigeen yahay ama ra'iisul wasaare waxba lagu dhiliili karaa hal dhiliil marka aad adigu aragto wuxuu leeyahay boqol wax oo wanaagsan adiga aan ku muuqan laakiin qofkaas markuu meesha ka baxo ku muuqan doonta waxa aan anigu ku amaanayaa Farmaajo dawladdiisa horta number 1 deyntii adduunku inagu lahaa waa la cafiyay hawadii ka baxday number 2 inta uu iska soo daayay dhalinyaro meel ku xaniban oo jeel ku jirta oo dhibaataysan oo inta wadan ay u tahriibeen wadankii lagu xiray you can't imagine waa wada ognay oo wadankoodii maanta jooga oo xor ah oo waalidiintoodii la nool way wada garanaynaa number 3 safaaradihii adduunka safaaradeeniyo adduunka ku soo noqotay oo ka taagan Washington DC macnaha ama New York oo macnaha safaaradeeni Mareykanka oo la furay oo macnaha waa qiimo weyn taasuna because awoodaba ku beenaan jiray safaaradiheeni iyo waxyaabo badan oo kale oo wanaagsan u qabtay waxa kale oo jiro u qabtay baan idin sheegay macnaha dad badan oo maanta wax laga yaabaa mucaarada inay idaawanayaan dad badan oo maxaafidna inay idaawanayaan laakiin dasamaara waxba ma sameynayso waxaana u sameeyeen anigu waxaan ka aaminsanaa sheegay aniga Farmaajo lacag ma siiyo imana yaqaano laakiin waan taageeraa sababtan u taageerayana waxa weeyaan waajib aniga igu ah ma aha inaan Farmaajo taageeriyo laakiin wadankayga ayaan anigu taageeriyaa wadankayga wixii wanaagsan ku soo kordhay inaan sheego waa waajib wixii xunna inaan sheego waa waajib marka wadanimada ayaa idiraysa ma aha inaan anigu Farmaajo leeyahay Farmaajo macna inaan farmaajaysanay ma aha laakiin waxa aan u hadlayo wadanimo okay waxa hadaba aan ku sheegaa oo kale jira taalooyinka ka dhisan Muqdisho ee calaamadihii ah macnaha astaamihii ah waxay tilmaamaysaa astaanka qaranku leeyahay sababta ay u tilmaamaysan ku sheegaya adduunyada markaynu tagno ama aynu marno dadkeenan waliba qurbaha ku nool maxaa indhihiinu qabtaan taariikh macnaha waxyaabaha farshaxanka ee taariikhaha adduunka ee taalooyinka kale maxay ka hadlayaan jiritaanka wadanka
astaanta wadanka waad aragteen magaalo kasta oo adduunka waxay leedahay astaan lagu garto oo magaaladii heblaayo markaad meel aragto historygii hebel ninkii hebel maxay haytay Martin Luther maxay haytay maxay ma fahanti markaa taasuna waa dawladnimada qayb ka mid ah waana ku mahadsan yihiin waana ay ku mahadsan yihiin waxaan kale oo ku ammaanayaa inta had iyo jeer dawladdaas sida aan sheekada ku maqlay dhalinyaro waxbarasho free loogu diray oo dibadda jira sida Turkiga oo kale ama meelo kale oo badan loogu diray waxbarasho oo dhalinyarada Soomaaliyeed la diro qofkii nasiibkiisa Ilaahay siiyo la waxani waa nasiib moogtay oo marka dhalinyaradii ay sidii dhaleen maartay kii u qalma kii waxbarasho dibadda u qalma is very good hadii loo diro taasna waa wax dhan oo waa nimcooyinka adduunka haddaba maxaa inaga markaa la inooga baahan yahay dadka shacabka anahay waxa la inooga baahan yahay dadka Soomaaliyeed qof walba waxaad ku tashataa 30 sano ayaad bilaa dawladahay 30 sano ayaad ku jirtay qabiil 30 jiro ayaad ku jirtay ana reer hebela 30 sano ayaad qaxoontahay waxaad ku fikirtaa ku seexataa ku soo toostaa bal sidii marun looga bixi lahaa oo dadku noqon lahayn dad isku tashada sidii aynu uga bixi lahayn mar qura inuu qaxoontiga uga bixi lahayn sidii aynu mar qura noqon lahayn dad wax qabsaday sidii aynu noqon lahayn mar qura dad iyagu isku tashaday Soomaalidana waxaan u sheegayaa walaalayaalow qof kasta oo Soomaali anigu waan u sheegay haddaad igu nacayso iyo haddaad igu jeclaanaysaba anigu qasab maaha inaad igu jeclaato rayigayga qasabna maaha inaad igu taageerto laakiin waxa aniga igu waajib wixii aniga qalbigayga ku jira inaan banaanka ku soo dhigo aanan kula wadaago waxaan ka codsanayaa dadka Soomaaliyeed meel kasta adduunka ay ka joogaan in la sameeyo communication bulshada in la sameeyo inay isdhex gasho waqooyi ku noolow koonfur ku noolow bari ku noolow galbeed ku noolow inaad tihiin dad isdhex gala wada shaqaysta inanka Hargeysa ku dhashay maanta inuu Boosaaso u shaqo tagi karo inanka Boosaaso ku dhashay inuu Hargeysa u soo shaqo tagi karo inanka Hargeysa u dhashay inuu Muqdisho u shaqo tagi karo inanka Muqdisho ku dhashay inuu Hargeysa u soo shaqo tagi karo waar maxaa qoloba meel ku xiray sidee horumar u gaadhina sidee adduunka ma idin muuqato laakiin aniga way ii muuqataa madaxda waxaan u sheegayaa dhalinyarada ha kala qoqobina macnaha adinka siyaasadiina haysta qolo waliba hadaad doonto siyaasadada adigu saa doonto aaminsanay laakiin bil fadlan waxaan ka codsanayaa dadka aqliga u saaxiibka dhalinyaradu inay tihiin dad bulshadu inay isdhex gasho inaan la iskala takoorin inaan la iskala saarsaarin waar Soomaali baynu nahay waar dad wada dhashay baynu nahay waar dad ehel baynu nahay waar dad isku dhiig baynu nahay waar qofka Soomaaliga cidda kaaga ma tagaayo waar qofka Soomaaliga gaajo kuguma eegayo waar qofka Soomaaliga baahi kuguma eegayo waar waxba ma kala yihiin ma fahantiin waar wadankeena meel uga soo wada jeesta dhalinyaro ay tasho dhalinyaro ay mustaqbalkaaga dambe ee caruuraha aad maanta dhashay ama jira anaga bilaa mustaqbal ku dhacnay iyo bilaa mustaqbal kaaga dhicin adeer adiga dhalinyaro adduunyo waxa hagta dhalinyaro anaga wadankayga ka qaxnay bilaa mustaqbal nagu dhacay bilaa waxbarasho nagu dhacday gebigayaguba aan maxay haytay bad iyo tahriib iyo silic iyo balanbal wadankayga xabadun ku kornay iyo dad isdilaya iyo wax saa isaga soo horjeedeen dhalinyaro meelaad adduunka joogtaba dhalinyarada Soomaaliyeed SO baan ku soo gaabiyay anigu SO baan ku soo gaabiyay ma dhaafinayo halka SO I don't care forever ka noqo waxba igama gelin aniga SO baan ku aqaan anigu SO baad u taagan tahay you international waa inaad noqoto country labenti wadankaaga waa inaad u noqoto qof international waa inaad isdhex gashaan
وإنا وضع شقيستان وإنا forever وإنا مقرنسا صاحبتان وإنا كبلا شقادة صاحب كادوكتاد وي وعضو أتورا هالكنا شقا كاسينا يا كالي مثلا إما كبوساسات شوكتا وحتى نيش قف شقا هيستا صاحبك أو هرقيسو كنول باتقانا أو شقا أباهن ولا هالكنا شقا كاسينا كالي دي هرقيسات كنوشا يا مبرعات كنوشا ولا أنا شقا كوهي كالي دي إن وقدمه dadka meesha jooga uga dhamay inuu qofkaas meesha ka shaqeeyo ha ku eegin qofka wax bartay qabiilkiisa laakiin qofka waxaad ku qiimaysaa PhD gu sito wax barashadiisa waxa uu soo bartay ku qiimee inta ku shaqeysta waxaad soo baratay ku qiimee aqoontiisa wanaagsan ku qiimee aqligiisa wanaagsan ku qiimee dadnimadiisa ku qiimee waxa jira hadaba dhalinyaro ay ku dhaxday wax barasho la'aan كبعدنا قحونتي إسكاكا كوري مركي دمنا مركي هورنا مركي دون كلا قراص قوري كود حقري قوري أما قاتي أما إسكاكا دي دحشوري نرشان دي سلاح مكاني كوكلي تدكي لأن يردي كوكورتي قحونتي يدسكا قحونتي إسكا هايدي حبادي لكولانتي إيان وحبا برن باتشرا مركي دبنا بارنتي بإسكا نقدين إسكا بروح وح إسكا برو عرور تادنا إسكا كرسو كل بارنتي باتي قفك عنك إليك qofkii ilaahay baaranti ka dhigayo wax iska korso arurtaada waxna iska baro meeshii aad ku noolaan kartana tag forever meesha doonto ahaw anigu waxaan wadaa isdhexgalka bulshada ayaan ka shaqeynayaa barnaamijkayguna waa sidaas meeshii aad ku noolaan karto ee arurtaada aad la tagi karto ee bariiskaagu ka bislay adeer tag forever qabiilka doonto ahaw meesha aad ka ximaalan tagtaba tagto halkaad ka xamaalan kartaba tag waxaan daawanaya maalin dhawto Facebooka nin la yidhi wuxuu ahaan jiray ciyaartooygii Soomaaliya cabdi bila cabdi buu haabaalay ninkii wax baray dhagahaygaasaan ku dhageystay tababarihiisii cabdi bila cabdi ninkii orodka Soomaaliya u galay lambar 1 ka maasha Allah cabdi bila cabdi tababarihiisii ay niiri waxaan ay tababarihiisii ama meeshaan keenay miyuu yiri mise waxaan ahaa tababarihiisii oo yaanyo iibinayaan ka yaanyo bal hadda magac xumada ina haysata iyo dhibaatada ina haysata bal hadda ka waran dawladnimo ayaa keentay macnaha qofka saasoo kale adduunka muxuu ka yahay qiimaha kale lacagtiisa retirementiga meel ba u saaran tahay guri buu ku jiraa nolol buu leeyahay caafimaad buu leeyahay ilaa intuu ka dhimanayo haye tababarihii cabdi bila cabdi ama iyo boqolaal cabdi bila cabdo kala tababaray ayaa wuxuu iibinayaa yaanyo la wareegaya xaafadaha saa u goobaynaya wallahi indhayga saar waan daawaday halkan aan ka daawaday lamaanta social media wax walba la soo dhigay waxaan faadimo mataasa idin dambeysay marka waxa weeyaan micnaha waxaad arkaysaa fanaaniintii hore de intii ilaahay dabadaha u qaxiyay de ilaahay wadanka ka saaray ma sheegin laakiin waxaad arkaysaa dad goboladii qaranka dadkii de magaca ku lahaa bulshada waxaad arkaysaa iska rafaadsan iska silcaaya buulan yar iskaga jira dadkii waaweynkii iska rafaadsan waxaas oo dhan dawlad la'aanta leh Soomaaliyeey goormaad wax garan Soomaaliyeey goormaad wax gudi Soomaaliyeey goormaad isgaran bal hadda eeg Soomaaliyeey goormaad wax garan Soomaaliyeey goormaad wax gudi Soomaaliyeey goormaad isgaran Soomaaliyeey 30 sano iyo ka badan ayaad ku jirtaa reflow dabaqada hoose baa tay 30 sano I know dadku way shaqaystaan dadku iska nool yihiin way iska shaqaystaan baac mushtar baa jira dad nolol ku nool baa jira laakiin anigu waxaan ka hadlay basiga noloshu wax weey dawladnimada ayaa very important waxa ii soo haray farmaajo iyo qayre horta laakiin nasiibkooda ay qaadayaan de haddii ku guuleystaan dawladda hadda doorashada haddana de waxba ma laha waa ilaahay baa u qoray hadday ku guuleysan waayeen wax dhiba ma jiraan magac iyo sharaf bay kaga tagayaan wadanka laakiin intay wadanka hayaan yaan la xagxaganin waxa weeye doorasho xalaal inay dhacdo de kii qabsadana
kii qabsada meeshan dee doorashaa imanaysa 4 sano ayaa loo goliyay madaxweynuhu inuu waddanka haysto 4 sano markay dhamaadaan dee dowladaasu mar dambe hadday soo sharaxdo shacabkeeda hadduu ka helo waa la dooranayaa dee haddii nasiibkuna aanu ka helina waa dimuqraatiyo dee mid kalaa uu nasiibku u helayaa laakiin waa inay dhacdo doorasho xalaala food aan wanbaan food macnaha dee dadku inay xor noqdaan oo qof aan la caburin dadka macnaha inaan dadka la caburin maaragtay one food laga dhigo qof kasta one maxaa la dhahaa qof kasta inuu iski u xoreeyo inuu u codeeyo oo aan wax jujuuba jirin wax ku shubajay aanay jirin wax maaragtay riixriixa aanay jirin waxa laga yaabaa dee inuu mid ka sii wanaagsan ma yimaado farmaajo waynu jecelahay qayro waynu jecelahay anu dowladooda aad baan u taageeray maasha allah mar walbana waan ka hadlaa aad baan u taageeray because waa niman dhalinyaro ah waa niman wax qaban kara waa niman adduunka indhahoodu soo jiidan karaan waa niman aqoon ku filan leh marka anigu waan taageeraa because madaxda oo dhan anigu waan taageeraya qof kasta oo wax wanaagsan qabta oo Soomaaliyana si garab taagan baan haddii ayagu uu khayr u yahayna dee Allah u fududeeyo haddii mid kale oo wanaagsan ilaahay inoo kii inaga noo yimaadaba waa aabahim nin baa xilidi inan baa lagu yidhi ninka hooyada guursadaaba ninkii hooyada guursadaba oo adeerkay ma fahanti marka inaga kii inoo yimaada madaxweynaheena weeye haddii farmaajo qabsadana welcome oo dib ugu soo noqdo dowladeena hadda jirta nabad iyo nolol dee haddii mid kale timaadana welcome baynu leenahay wax dhiba kuma jiraan laakiin shacabka waa inay yihiin dad iska degan danahooda yaqaana danahooda ka tashanaya Soomaaliya burbur dani kuguma jirto tafaraaraq dani kuguma jirto kala daadsanaan dani kuguma jirto dhaqtar ma lihid waxba ma lihid wax walba inta tabarucun baa lagu taagay taasoo tafaraaraqsan tahay dadkaaga waaweynaba saawbaaya marka wallaahi waxaan oran lahaa Soomaali ha tashato meelay adduunka ka joogto anigu hal qabiil lama hadlaayo oo idin sheegan aan international webbing baan ahay dhabenti gabar anigu dhexdhexaada baan ahay waxaan kale oo baaq dheer u diraya dadka baraha bulshada ka hadla bil fadlan ee iiga horeeyay ee in badan ku jiray ee weligood ku jirayow qabiilada inaga daaya magaceena waa SO Soomaali isku soo dhaweeya Soomaali isu keena Soomaali walaaleeya Soomaaliya Soomaali baale Soomaaliya Soomaali baale Soomaaliya Soomaali baale reer Cabdi Tahliila waa u tacsiideynaya dhammaan dadka Soomaaliyeed Cabdi Tahliil warsame Ilaahay ha u naxariisto wuu dhintay Allah ha u naxariisto ehelkiisii iyo qaraabadiisii iyo dhammaan dadka Soomaaliyeed oo dhan meel joogaan waxaan leeyahay samir iyo iimaan ayaan leeyahay Ilaahay ha u naxariisto Ilaahay godka ha u nooro waxaan ku heesihiisii aad bay u qiimo badnaayeen heesta ayaa ka mid ahayd Soomaaliya Soomaali baale Soomaaliya Soomaali baale is very important heestaas waa hees aad u qaaliya Soomaaliya Soomaali baale war intaas ku dhan yahay Soomaaliya Soomaali baale Soomaaliya ha noolaato Soomaali meel kasta adduunka ku joogto ha noolaato ha jirto ha waarto Ilaahay ha barakeeyo kuwii isjeclaada wax wada qabsada wax wada le walaala Allah ka dhigo Allah isjeclaysiiyo Ilaahay Soomaali cadawgeeda ha qabto waa Soomaali oo dhan baan u dacweynayaa Soomaali oo dhan SO wixii ka kaca ma kala saarsaaraya anigu SO international Soomaaliya Soomaali baale Soomaaliya Soomaali baale Soomaaliya Soomaali baale Soomaaliya Soomaali baale Soomaaliya Soomaali Soomaaliya Soomaali baale 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 I love you so much. Assalamu alaikum.
ورحمة الله وبركاته. أولاشي فاطمة قضن وإذن كتجيسة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوي نبض إيه نور الكوارع عافي ما تسوق الصون نقضي عمر دير الله ينقدقه. والسلام عليكم. السلام عليكم.